بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. halka waxaa ka hadlaya maanta waa afayeenkii Qurbajogta beesha Ciise Haji Cumar Awaal Ibrahim. maanta waxaan ka hadlaynaa toddobaadkiina dhaafay dhimasho ka dhacday gobolka Soomaalida Ethiopia, city gobolka city zonka city degmada Dambal. waxaa dhacday toddobaadkan in beelaha meesha dega beesha Samaroon iyo Ciise ay isku qabtaan beerta originalka Ciise lahaa. xaqdarrada maaragtay inta badanna lama wada leh, dad baa gaar iskaga leh. beerta markaa oday meesha iska lahaa baa war meeshan anaa leh, xaqdarrada igala taga. markaasay diideen, beertii ay faqfaqdeen. bisabtii ka dhacday Cabdiqaadir oo kale ayay sameeyeen, oo darbi xoortii oo kale ka dhacday. marka reerkii Samaroon markii beertii wariidaya meeshan ka qaana anaale uu ninkii yidhi Ciise waa diideen. beertii faqanayaan busulii dambe u yimiday. beertii uu markaa ka kala eryaday, dabna waa geliyey. markaas ayay iyagina carreenay booliis u yeedheen. booliiskii ayaa markaa fal geystay. odaygii oo beertiisii dhex joogay u yimaadeen. booliiskii odaygii ayay shuud gareeyeen. marka booliisku maaragtay haddii ay nabad u socdaan inay qof shuud gareeyaan waa qalad. buur judgment bay sameeyeen. kolkay booliiskii shuud gareeyeen odaygii, askartii ayaa markaa ninkii watay ayay odaygii wiilkiisa oo la socdana uu shuud gareeyey. askartiina haddana waxay shuud garaysay inankii yaraa. inankii waa dhaawac. askartii nin baa ka dhintay, odaygiina waa dhintay. falkaasna waxaa ka dambeeyey beesha halkaa degtay ee Samaroon. iyakiina markaas dib loo fadhiistay. odayadii Gendaha iyo Ciise isku yimaadeen. dowladdii federaal iyo levelkii gobolka iyo kii degmadaba intiiba isku yimaadeen. arrinkii dib loo eegay. odayadii Samaroon baa loo yeedhay. waxaa la yidhi beertan original waxaa iskale Ciise, dee waa inaad seegaan warqadahan. waa diiday 12 oday oo Samaroonka halkaa degana waa diideen. dowladdii marka waxay u aragtay inay qaldan yihiin. odayadii waa la xidhxidhay. 2 sano ayaa maxkamad lagu xukumay. dhimashadana ayaga sababtaa leh ka dambeeyey. markaas waxa weeyaan dadka inay istilaan oo markaa 2 nin oo isku reer oo Ciise ay istileen ayaa meeshaana ka dhacday. waxaan leenahay samariya iibaan dadkii reerkii caruur 2 nin ka dhinteen, ka dhaawacana ilaahay ha u dhib yareeyo. laakiin falka si uuna u dhicin dowladda kililka inay ka taxadirto reerkan Samaroon ee beerta u wajaqay dhulkoogiina ku filayn ee dhul dad kale uun inay eryadaan doonay. waa inay dowladda kililku ay indho gaara ku eegto. Dambal waa dhul Ciise, waa deganaan karaan. wax yarna meel oo loo ogolyahay waa qodan karaan. laakiin meel qofkii lahaa uu leeyahay war meeshan anaa leh, inaad dee xoogna ama xeelad labada midna ma hayo. waa xaqdarrada aynkaasoo maydhan. waxa inay indhaha furaan beesha Ciisena oo dhulkooga iyo dadkoogaba ay daneeyaan ay ilaashadaan. Dambal maamulka degmadana waxaasoo kale si uu dhicin marka dad isqabtaan xaqa inay eegaan ayaan codsanaynaa. inay maamulka Dambaleed ama meelo kaleba ay horta dib u fiiriyaan 2 qof ee arrin isku qabata. kii xaq u lahaa, kii dhulka lahaa oo dhayalsan markay dhimasho dhacdo in la boodboodo maaha. marka waxa weeyaan buur judgment bay sameeyeen askartuna. maamulkuna arrintaa waa yaraystay. marka insha allah indho gaara waa inaad ku eegtiin. halkan ogaaska iyo odayada u soo gurmaday arrinta oo Gendaha ayaan hambalya u soo diraynaa. insha allah ilaahay niga jasaaysiiyo nabadda aad ku soo xasiliseen ilaa halkaa u timaadeen. ilaahayna aniga abaalmariyo. dadkii dhintana allah u naxariisto. riroogiina samir iibaan baan leenahay. wasalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.